dadaal fara badan iyo juhdi ayaad gelisaa ganacsigaaga si uu u guulaysto balse wax faa'iido ah ma samaysid xataa isagoo ganacsigaagu uu soo xareeyo lacaga fara badan balse bisha dhammaadkeeda wax lacaga oo ku soo hara male. xisaabtu waa luuqadda ganacsiga. haddii xisaabtu qaldantana ganacsigaagu wuu khasaari doonaa, waana sida ay tahay. haddii aad rabtana in ganacsigaagu sida ugu dhaqsaha badan leh uu faa'iido u sameeyo inta sanadka ka dhiman, waa kuwan 4 talo ee kaa caawin doonta si aad faa'iido degdega u samayso. waayo 4 talo waxay hore u caawisay ganacsi sidaada oo kale. kusoo dhowow Hantiyeelo, magacaygu waa Iid, waxaan ahay ganacsade, maalgashade iyo sidoo kale public speaker. maanta waxaan kula wadaagi doonaa 4 talo oo hore uga caawisay ganacsi adigana kaa caawin doonta sida ugu dhaqsaha badan leh inaad faa'iido u samayso. waxa ii yimiday inaan uun ila soo xiriirin markaas igu yidhi waxaan ahay CEO-ga shirkad. xaqiiqdii waxaanu gacanta ku haynaa projectyada ugu waaweyn ee magaalada. annaga shaqo la'aan horta nama hayso, lacag la'aan nama hayso, faa'iidana nasiib xumo ma samayno. markaasaan ku yidhi sidee bay suurtagal ku tahay adigoo projectyada magaalada ugu fiican leh, shaqaale fiican haysta, si fiican noo shaqeey, maxay tahay sababta aadan faa'iido u samayn? kabacdina uu isii warramay. markaasuu igu yidhi bil walba lacag ku dhowaad $2,000 ayaana soo gashay in ka badan. lacagahaasi waxay ku baxaan sida in agabyo degdega loogu baahdo inaan soo iibiyo iyo mataqaanaa mararka qaar aniga oo mataqaanaa mushkilad ama xaalado xaafadeed ay la soo kordhaan kabacdina xaaladahaas aan ku daboolo. markaasaan weydiiyey su-aasha, waxaan ku yidhi lacagahaas halkee bay kusoo dhacaan? markaasuu igu yidhi sidii aan xasuusta welibana lacagtaasi waxay kusoo dhacdaa akoonkayga. markaasuu yidhi ganacsigaygu in badan ayuu soo jiraa balse waqtiyadii ugu dambeysay waxaan la dhibaataysanahay qaybta dhaqaalaha. marka sidee baan xal u gaarnaa? haddaba waa kuwan 4 talo NC adigana kaa caawin doonta. mushkilad markay la kulmaan ganacsatadu sida ugu dhaqsaha badan leh mushkiladda xalkeeda si u gaadhaan waxay sida ugu dhaqsaha badan leh daweeyaan calaamadaha iyagoo oo aan daweyn xanuunka. si fiican u dhegeyso, waxay daweeyaan calaamadaha iyagoon daweyn xanuunka. ugu dambaystan xanuunku mar laba ayuu soo laabtaa, mar saddexaad ayuu soo laabtaa maadaama aysan daweynin xanuunka. haddaba waatan qaabkii aan xalka u wada gaarnay sida ugu dhaqsaha badan leh halkee ayaa la daweynaya xanuunka, balse information fara badan ayaa loo baahan yahay. haddaba waatan qaabkii aanu fahmay ganacsigiisu inuu guuldareysanayo, wuxuusan lahayn nidaam ka caawinaya si uu faa'iido u sameeyo. waa kan qaabkii nidaamkan aan ugu dhisay. tallaabada koowaad, xakamee cidda lacagta gacanta ku haysa. wuxuu igu yidhi lacagtu anigii kusoo dhacdaa mararka qaar akoonkayga, anigana ah CEO-ga sidoo kale xisaabiyaha shirkadda. markaasaan ku yidhi maanta laga bilaabo qof ayaynu shaqaalaysiin doonaa. markaasaan weliba ku yidhi shaqaalaysii sidii qof hooyada oo kale. markaasuu yidhi hooyadii ah maxaad uga jeedaa? muu fahmin, balse waxaan uga jeeda waxay qof hantida kuugu ilaalin karaya si qof hantidiisii oo kale u arki karaya. qof noocaasa shaqaalaysii kulana xisaabtami karaya. waa waalidku wala xisaabtamaan qofka waalidkaaga oo kale, macnaha kula xisaabtami karaya. sidaas oo kale qof noocaas oo kale shaqaalaysiin. maxay naga caawinaysaa qof in la shaqaalaysiiyo? kow, waxay naga caawin doontaa in la helo xog. haddii aysan jirin xog, go'aan lama gaari karo. waayo muu garanayn kharashaadkiisu halkay ku baxdo. wuxuu yidhi waxa laga yaabo waxyaalahaas ka soo dhacdhacay inaan ku bixiyo. xaqiiqdii miya caddayn miyuu keeni kara? waa maya, ma garan karo. 2, waa seeska ganacsiga. haddii uusan jirin meel loo tixraaci karo shay walba ganacsigaasi meel uu socdo iyo meel uu ku socdo midna toona lama garanayo. haddaba nidaamkani wuxuu ahaa nidaam aan ku yidhi qof shaqaalaysii si dareenka ah degdega wax ku bixi ay meesha uga baxdo, si uu u noqdo businesska dhaqaalaha uu ku dhisan yahay mid automatic qofna shaqaalaysiisi. haddaba adigu kuma qasbanin inaad ganacsigaaga u shaqaalaysiiso qof. waxaa kaa caawin doona nidaam fudud kaasoo qof walbaaba uu fahmi karo, kaana caawin kara businesskaagu inuu financial ahaan u dhisnaado si dabiici automatic u baxo. sababtu maxay tahay aan kula wadaagay systemkan? waxaan maalin dhaweytay anigoo fadhiya meel kaalin shidaala ba waxaan arkay 2 inan oo 2 buug oo waaweyn haysta, mataqaanaa daalan oo rafaadsan. markaasuu ku war maxaad wadaan? markaasuu yidhi war 2 cisho ugu dambeysayba waxaan xisaabinaynaa meheraddan aad hor fadhido kharashaadkeeda. haddaba waa tan su-aasha aan maskaxdayda weydiiyey aniga laftarkaygu aan ka fikirina. 2 shaqaale ayaa ka shaqeeya. xisaabiyaha meheraddaasi, meheradun meherad weyn ayay ahayd, wuxuu qaataa ugu yaraan $100. 2 qof ayayna ahayn, 2 ku dhufo 100 waxay noqonaysaa $200. haddaba sanad bal aynu xisaabino 12 bilood waxaad ku dhufataa $200 waxay noqonaysaa $2,400. runtii waa lacag badan.
haddaba nidaam ka fudud haddii lagula wadaagi lahaa lacag intee leeg ay sidoo kale ku keydin runtii lacag fara badan. haddaba waa kan nidaam kaa caawin doona iyo xisaabi. iyo xisaabi waa fududeediyaha dhaqaalaha, wuxuu kaa caawin doonaa mid shakhsiyad iyo mid ganacsiba in uu ku tuso kharashaadkaagu halkay ku baxayaan, dakhligaagu halka uu kaa soo galo, lacagaha u badan halka aad ku bixiso, qorsheynta miisaaniyadaada. waayo qofkaas ma haysan wuxuu xataa qorshay, hadda wuxuu haystaa inuu sii qorsheyn karayo ganacsigaagana sidaasoo kale waa sii ogtahay exactly waxa ku baxay mushaar, kharashaad, kiro, wax walba. faa'iidana halkaas ayaad ka samaynaysaa iyo maalgashi iyo wixii aad adigu rabto aad qorsheynaysaa. sidoo kale deymaha, deynta lagugu leeyahay waqtigeedii in la bixiyay in kale. haddaba sideed uga faa'iideysan kartaa ii xisaabi aad u noqon kartaan dadka ugu horeeya ee ka faa'iideystaa. ii xisaabi waan launch garayn doonaa, waanu soo shaacin doonaa, waanu soo bandhigi doonaa, balse nasiib xumo keliya 200 oo qof ayaa marka ugu horeysa aan qaadan doonaa. sababtuna maxay tahay? waxaanu rabnaa 200 ee qof in aan ugu adeegno si tayeysan, si aan ugu xalino mushkilahooda sida ugu tayeysan. haddaba haddii aad xiisaynaysid ood u ahaatid dadka ugu tirada yar leh ee ka faa'iideysta ii xisaabi ka hor inta aanan launch garayn, whatsapp linkiga hoos ayaan kuu dhigi doonaa. halka waxaad kusoo qortaa booskayga iyo diyaar ayaan ahay. tallaabada labaad, kala saar mulkiyadda iyo ganacsiga. wuxuu igu yidhi aniga ah CEO, lacagaha i soo galana wixii soo kordha iyo mushkiladu ayaan ku xaliya. adigu CEO baa tahay, laakiin qasab maahan in lacagta iyo dakhliga soo gelaya ganacsiga inaad adigu jeebka ku shubato. waxaan ku yidhi maanta laga bilaabo waxaad tahay shaqaale, waxaad qaadan doontaa mushahar, qofkaas aad shaqaaleysiin doonta ayaana ku siin doona bisha dhammaadkeeda. mushkiladaha soo baxana u sheeg familigaaga, u sheeg naftaada in bisha dhammaadkeeda aad ku xalin doonto. tani maxay muhiim u tahay? maxayse ka caawinaysaa isaga? kow, in la kala saaro mulkiyadda iyo nidaamka ganacsiga. laba, waxay caawinaysaa in la helo xog cad taasoo u sahli doonta ganacsiga in uu miisaaniyadiisa sii qorsheeyo. tallaabada saddexaad, dhis nidaam lacag bixisa. wuxuu ii sheegay sidoo kale idinkana idinka iloobi. wuxuu igu yidhi dhalinyartu ila shaqaysay markay shaqo fiican ay qabtaan waxaan ku abaalmariyaa shaqada quruxda badan ay qabteen. ma xuma fikraddu, balse waxay abuureysay inaan la ogaanin kharashaadku meeshay ku baxayaan. waatan talada aan siiyena, jooji lacagaha abaalmarinta ee laysku siinayo si joogta. abaalmarinta ku bixi bille. nidaamkan wuxuu kaa caawinaya inaad ogaato waxaad bixinayso waana qorsheyn karaysaa. tallaabada afraad, dhis nidaam go'aan qaadashada. haddaba waatan wixii uu ila wadaagay. wuxuu igu yidhi marka loo baahdo agab sida ugu dhaqsaha badan leh ayaynu soo iibiyaa maadaama agabkaasi uu muhiim yahay. waatan haddaba ruulkii aan la wadaagay ama sharciga aan la wadaagay. 3-day rule muxuu yahay? 3 cisho ee sharciga. waxaan ku yidhi marka loo baahdo agab isla markaaba ha soo iibinin ee xafiiskaaga waxaad ku qortaa agabka magaciisa, welibana meel wada arkayo. kabacdina taariikhda ku qor, qiimaha ku qor iyo taariikhda. 3 cisho kabacdi kusoo laabo. maalin walbana waad arki doontaa dabcan xafiiskaaga markaad joogtay. maalin walba arag dhaaf. maalinta saddexaad imow, kabacdina go'aan ka gaadh inuu shaygaas weli kaa daayahay muhiim iyo in kale. 4 tallaabo markii aan la wadaag natiijo noocan ayaa ka dhalatay. wuxuu yidhi ayaamo gudahood baan natiijo fiican ku arkay, baan faa'iido ku arkay. systemkayga iyo businesskaygiba si fiican oo taysan ayuu socdaa oo smoothly. faa'iidana waxaan sameeyaa wax ka badan $1,000. markii horena minds ayuu gelayay. ma arkaysaa? waan ogahay xogtaas inay ahayd xog aad u fara badan, balse muxuu yahay halka tallaabo ee aad maantadan ku bilaabi karto ganacsigaaga si uu faa'iido u sameeyo. hoos nagula wadaag, loof ayaan ku saari doonaa biidnillah. waanigu iida. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.